mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay xaflad loo sameeyay dufcaddii sagaalaad ee ka qalin jabisa dugsiga Al-Cimra ee magaalada Burco. Ardayda ka qalin jabinaysay dugsiga Al-Cimra oo bartay luqadaha Carabiga iyo Ingiriisiga ayaa xaflad habeenkii xalay ahaa loogu sameeyay Hotel Barwaaqo ee magaalada Burco, taasoo ay ka soo qayb galeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga Al-Cimra, maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, waalidiin iyo ardayda dugsigaasi. ugu horreyn waxaa xafladaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Al-Cimra Jamaal Cali Maxamed, waxaanu ka xog waramay marxaladihii iyo heerarkii kala duwanaa uu dugsigani soo maray, isagoo maamuluhu tilmaamay in dugsigani maadooyinka lagu barto ay ka mid yihiin luqadaha Carabiga, Ingiriisiga, Faransiiska iyo Talyaaniga. ardaydu waa maasha Allah waxaan ku kubay qaybo fara badan. wuxuu leeyahay qayb primary oo gelin kara, qayb luqadka, qaybaha computerka sida luqadda Carabiga oo kale, luqadda Ingiriisiga iyo luqadaha Talyaaniga iyo Faransiiska intaba waa lagu dhigaa dugsiga. sidaa awgeed dufcaddan maanta ka baxaysa iskuulka waa dufcaddii sagaalaad. xafladeenaynu fadhino dugsiga xafladeenaynu maanta fadhino waxaa ku jirta arday luqadda Carabiga iyo arday luqadda Ingiriisiga. khaasatan way jiraan arday fara badan ama iskuulo fara badan oo luqadda Ingiriisiga dhiga, laakiin luqadda Carabiga oo dugsigii bilaabay magaaladan Burco ama gobolkan waa Togdheer. gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Xasan Jaamac Warsame oo isna xafladaasi ka hadlay ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay maamulka iyo macallimiinta dugsiga Al-Cimra oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo dadaal ugu jira sidii ay u sii xoojin lahaayeen waxbarashada, isagoo gudoomiyuhu tilmaamay in dugsiga Al-Cimrana uu ka mid yahay dugsiyada ku dhaqma manhajka iyo siyaasadda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland u yaala. marka aad baan ugu mahad celinayna kaabida ama isqaadka ama kartida ay la yimaadeen in ay waxbarashadii dalka ka qayb qaataan. waana dugsi ku xidhan sida runtii waxbarashada gobolka iyo ta dalka oo fuliya siyaasadda waxbarashada iyo manhajka waxbarashada. qaybo barayfida uu leeyahay oo imika deer uu carab ku dhuftay maamuluhu, laakiin gelin baa jira dhan oo ah dugsi primary oo 1 ilaa 6. ardayda maanta ka qalin jabisay dugsiga Al-Cimra ee magaalada Burco ayaa tiradoodu dhamay 7 arday, kuwaas oo dhamaystay luqadaha Ingiriisiga iyo Carabiga, waxaana noqonayaan dufcaddii sagaalaad ee ka qalin jabisa dugsigani. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii dhamaysatay luqadaha Carabiga iyo Ingiriisiga iyo weliba arday kale oo ku guuleysatay tartamo dhawaanahanba dhex marayay fasalada uu dugsigani ka kooban yahay. maxamed Caawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Burco.